ilaa 30 dhalinyaro ah oo ka kala socday degmooyinka maamulka Galmudug ayaa magaalada Cadaado lagu soo gabagabeeyay tababar ku saabsan hogaaminta wanaagsan iyo in dhalinyaradu ay ka qayb qaataan hogaaminta wanaagsan ee dalka. Gudoomiyaha ururka dhalinyarada Galmudug Caruuse Macalin Maxamed ayaa ugu horeyn faahfaahinaya muhiimadda uu tababarkaasi u lahaa dhalinyarada. Wasaaradda dhalinyarada iyo ururka dhalinyarada waxay ugu talagaleen in la kobciyo tababarka iyo xirfadda dhalinyarada hogaaminta dhanka hogaaminta. waxaan rajeynayaa dhalinyaradii in ka horeysay inay ka faa'iideen waxyaalo badan oo runtii saameyn ku yeeshay aan ficil doona hogaanka dhalinyarada iyo dhalinyarada laftirkooda ururka dhalinyarada ka tirsan oo Galmudug inay wax badan ka faa'iideen. idinkuna waxaad tihiin qaybtii ugu dambeysay dhalinyarada oo qaadatay tababarkaasi. agaasimaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee maamulka Galmudug Cabdiqani Xasan Dhoore ayaa ka mid ahaa dadkii halkaas ka hadlay. waxaan dileeyahay marka in ka codsanaya aan ku hadlay wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga wixii aad meeshan ku barateen inayna meel la fadhiisan ee uga faa'iideysaan dhalinyarada kale nasiib ku yeelo weeday inay mashruucan ka qayb ka ahaadaan waayo adinka wax badan ka faa'iideystay ayaan u celin doontaa. xildhibaan Mahad Sheekh Cali Cibaar oo ka mid ah baarlamaanka Galmudug oo tababarkaas soo xiray ayaa dhalinyarada kala hadlay muhiimadda ay leedahay in dhalinyarada la baro hogaaminta wanaagsan. waa in kaga mahad celinaa seminarkan sharafta badan iyo mataqaana waxa aad barateen qof kasto maanta hal eray faa'iideysta waxa rabaa badda kale u faa'iideeyo. dhalinyarada waa dhaxaad bulsho dhan ayada hogaamiso bulsho dhan ayada horumarkeeda ka shaqeyso marka dhalinyaradu waa muhiim u yihiin dad bulsho nool dhalinyaradu muhiim marka waxaad barateen oo kaga mahad celinaa inkastoo ayaduna ay ahayd inaad mar walba ay soo laalaabato qoladan hadda barnaamijkan oo kala keentay hogaaminta muhiim waa in dadka la baro hogaaminta in dadka la baro waxa wanaagsan mataqaana looga bixi karo waxyaabaha qaarkood oo aan wanaagsaneyn waad ogtiin dhalinyarada si kasta loo adeegsadaa dhan walba loo adeegsadaa laakiin xilliyadan dambe waxa laga sii baxaa xilliga adeegsiga dhalinyarada ayada dhalinyarada waxa laga rabaa in ay wax adeegsato oo micnaha ay u adeegsato hogaanka. عبد حسن أووي ورباهنت قرنك الصوماليات عدادو.